عيار waxa ugu weyn kulli wax weeyaan caawa laba Ingiriis halis bay ku jiraan nibanna waxay rabaan kabti Deportivo La Coruña inay gishtaan wa Chelsea La Coruña baa gashatay mida ragna waxay rabaan kabti Liverpool inay gishtaan wa City waxa laga yaabaa laba caawa koox England isku soo daba daro hadaan mucjise kala dhicin ya ama waxa suurtagal ah inay caawa isrageeyaan jibaalkooda goora la galay nimankaas hooshooda goora la soo cabay wa maqaar macaabuug laakiin warki doona kulli caawa ilmihii body glam tibal iska bilaaba ciyaartiina inta kale dab waxay soo wada galiyaan 12 habeen bay soo galiyaan kullu inta ka dambeeyay ninkii Jimli kooxdiisa u joogto waqtigan 5 saac waa laga bedelaa 4 saac habeen ma loo keenaya waqtiga dambeeshi macaanteeda la galaa ya ragga qaarna meesha ma soo gaari doonaanba laakiin Jimli garaad kaarta marka qaarna xanuun ba ka haraya ya xanuun waa mugta Jimli si joog laakiin markaad joogto oo xanuunka u dul qaadato jaka dad ka siisa geedkuna cimaamadu waa adaa fursad badan ba Mbappe waxay war ku qaar leeyihiin haduu ready noqdo ciyaarta uu ciyaaraya laakiin warka la soo tag Mbappe waxa la arkay isagoo Itaad ku tababaranaya waliba dheereeyay kaas meel boog xanuunaysa kaas nin meel ay xanuunaysa uma eka soo soo galay baan arkay Itaad markuu ku tababaranayay hatta Jude Bellingham tababarka ku jiro waxay tahay habeen Madrid isu soo laabteen waa hawl Man City ku adag daacadii Jude wasna waa tababaranay Carreras ilaa iyo Kylian marka wallahi City kulankii hore la dheeray hatta kulanka waxay ahayd ilaa halkoo gool shaqadaanay ahayd macna ee nimankii madaxa taagan ee gool bay dhaliyaan mar rabaane nimanku goolkii ka guuray marka xaaladooda la fiirin nimankaas gool la'aanta ka haysto waa haween qof waa kici karaa laakiin nimankaas xaalad ka muuqata ayaan tan oo gool fardhisa in labadan markay ciyaarayaan 8 jeer Madrid ba adkaatay 6 koon ba adkaaday City ciyaari ugu dambeysay saddexda ahaa Real 3 mar City 2 mar Real 3 wow ayaan tan City aad baa looga gool badan yahay ya markaad fiiriso Real Madrid waxa Man City hadda laga badinayaa 3 kamid ah 4 jeer ugu dambeeyay Madrid ay la ciyaareen markan ka hor 12 jeer oo Man City 12 jeer ugu Man City hore u la ciyaartay Real Madrid ma taqaana City 4 ay badisay 5 baray jaal galay 3 jeerna ayaa laga badiyay bis yaani City hadday soo aruurtay Madrid iska celi karin labada maalmood iyo muddooyinka ugu dambeeyay ya laakiin waqtigii ka horeeyay City way iska celin jirtay kuwa kan هذا بالفعل أفرد جرود من سدح جار الجراعية الله يتفكر عيار هرانا ويمدر الوسع عيارين أفريقيا بديين سدحون بالله بدي شنا بريجو تاسو حكوا عدينا سايان تان سيتي إن الله يستقولن ككان لين عقلوا حويان ريال مدريد وعاوز عطا مركي شنات إن مانشستر سيتي أي ريبان يا أسعدان وتيمان يقول لي نيكي ميكريتشز وروح ريال مدريد واكره سدور معنا ورواي أنا سنة كاست مدريد نلقوا بيجا يور معنا معايلي مدريد سيتي وهي ريبان hore waxay u soo reebeen 4 jeer 2015 2023 2023 2024 caaw waxay u socdaan markii shanaad inay naga stage-ka ku reebaan Manchester City bay u socdaan mid kale Pep Guardiola dabeecad u malaha habeenka noocan oo kale soo gidiyo Hungurian ku galin waa macnaha Hunguri ha isgelin walaalkiiyo u sacbadal caaw kale Man City xaalkan lagu arkayo Man City hore u muuqan ya iyo Madrid oo balaay iska soo laabteen wax weeyaan habeenka noocan oo kale waa loo sacbadalaa wax weeyaan waa laga seexdaa loo soo kaca war ciyaarta maxay ku dhumaatay haddaad badiso oo Man City soo baxday kab weyn goosgooska habeenkan iska garaac haddii ay mataqaana ku mari weysana wax weeyaan madax xanuun iyo wadna dhaglays ayaa ka badbaaday bis ya Pep Guardiola habeenka noocan oo kale ma bayaqaan bas u soo gudin lahaa naga stage oo lugta koowaad laga badiyay tan 2045 nuuri habeenka noocan oo kale Pep Guardiola ma soo celin karaba haddii macnaha kooxdiisa سانة وكل نتيجة في على جوهر مربوط كل الصوغ راعو هل مر بس نتيجة سعي وإحنا كسر علينا تقانا وأم بورتو معها مدريد معايا كوين معها بورتو مركب برتغال الله إيجوا كوين لكن مركب جميل يقول الله إيجوا إنك استمرين جميل الله قاضي حتى كح الله ببرليه كرمها مجن ومركز حقوق بدني مركز أم بوصلاتي موياني أنتي كله هراي ما نوصلات شنجر أو هراي وسانوت كود الله جوهر مري قول بجورديل كحديث ما نسعلين من الصابحين ولا بسدح جير أو كمية حقوق خمسة سنين كان سيتي أنت لو كنت لقى صوب بديو وقلب بنجر له مسؤول لا بنجر له هذي لقى صوب بدي وقلب بنا إليه ولا صوب بدينا وقلب بنا إليه معنا مركبين كانوا عن قلب بيب جوارديولا حريفكم معها تاسوتها ميدك الريال مدريد أو لقت قوات سدح جول يكبدن الكوبا ديسا ومركز دني اللي عاد تاريخه صدق نشان جير أو هراء أو أيسان أو كله لقت قوات سدح جول كوبا ديان ريال مدريد مرنو مهرم وين الصوب ويصوبحين مركوا صوب كله قو عدينيسا City inaan ciyaartan waxba ka qaban karin Pep Guardiola arkay isaga maruu Sacuud dambe ka hadlay asaga ku dhisaaqiraya wuxuu leeyahay cidna ma sameeyay historiga 3 gool oo Madrid lugta kood ay ku hormartay
يعني oo ku badisay in lugtada laga soo laabto cidna ma sameyn buu leeyahay runtii wax badan ayaa dhici kara habeenka laakiin muhiimada ugu horeysa waxay tahay in ciyaartan badino ana xataa shalay saas ayay war ugu yaraan xataa haddii la dhimin dherer kale iska tiraa xataa Man City Real Madrid waa ka badisay xataa kabwa war har haddaad rabtaan ya adi xataa markaad kooxda xaalad noocan ku aragtid niyo malas jirriq geliyo waa la sabraa hadda dabeecad City markaad aragto horyaal ku aragto oo tartamaan ku aragto oo hadda 5 kulan oo qiixay seasonkeeda ku soo socdaan oo zirkoob ay ku bixi karaan in kale markaad xaalad noocan oo kale aad ku aragto waxa la rabaa inaad iska sabarto xilad xanaaqda ma joogtid waxa ka xanaaqi kartaa City afar leedo ku guuleysanaysi oo saddex leedo ku guuleysanaysi seasonka kuwaas oo ka xanaaqi kartaa waxa dhigi kartaa oo yaa waxaan umaan u qalmin la kuwan ka xanaaqi kartaa walaal ha isku jeeq gelin kuwan isku weereerin kuwan tabartaas ma laha marka kooxdaada marka tabarteeda fiiriso aad go'aan gaari kartaa City ma joogta xilli la isku xanaajiyo maanta ma joogto walaal hadda runta aan ku sheego xilli nimankan looga xanaaqo oo la yiraahdo war maxay saan noogu dhacaysa ma joogto kooxda marka wax weeyaan ha isku wareerin ninkan wuxuu taagay muhiimada aanu badin la ciyaarta intaas xitaa cimaamadu ana sasan taaganahay inaad marka waxaan ka baqaa marka idinkii la rabay remontadi kan balow in garoonkiin la idinku khashkhashaado ambaraajo ku gashaan marka Pep wuxuu leeyahay muhiimada ugu weyn waxay tahay kow waa inaan ciyaartu guuleysanaa taas aan sameeyno mid kale wuxuu leeyahay taageerayaasha qofka aan aaminsanayn in habeenka aan soo laaban karno gurigiisa iska joogo taageerayaasha sidoo kale ciyaartoygu u sheegay ciyaartoygii aan aaminsanayn in caawa kan baa ku sameyn karno Real Madrid ya hadda muxuu mishaar badan nooga qaataa uu leeyahay runtii يوسف عيارين بوله هبينك عياريان كان آمن سنين إن الريمونتادا أن سمين كرين وحوله وإننا آمنا هذا آمن سنين إن نعاوة جامليغا أصوب بحكرين وين يقولوا ذلك جواب عيارتوغيغا باب عيديس وكذا كعلي مشار بدن أي غاتين برو لما وين بناتين نين كان آمن سنين برو نعاوة أن ويران أن سكو دي كرين عيارتان وأن سول لابن كرين قولوا ذلك جو أن سول لابن مركا ريال صدن إلح جار أي ميدان سميني سلوكت كواد إني صدح قولي كبدا كوبا سلوكت كواد صد شنجار كميد مدريد يصوب حي مركوي أذكت هاي دفئي نادر ويان وحرو رعي مبا دف معايتها محمد مركا تاسواتها ميدا كلام معالن كمان سيتي باب غارديولا وحقوق قول داريسان دونا هبينكا إنو غاري ووريكس دماتكا سنة اسكو حيقا أيانتان سنة اسكو حيقا حتى هدي عاو معنو وهارو سنة اسكو حيقا نقونا إساس دي دماتكا مانستي يسو غاني سنة كلا صور عافاي إسلام مدريد أنا ريب أو أباري آل مدريد با ديك اللي صدري سنة كور markay bilow fis ciyaarayna 6 min soo gaarimo 8 min soo gaan 6 iska badaayay haddana waa kan habeenka 8 ay way karaan markan ka hor Pep Guardiola 15 sano ugu horeeyay tababarnimo hal mar ay dhacday inuu quarter finalka soo gaari waayo haddana waxa uu leeyahay 2 sano isku xigta ayuu mataqaana quarter finalka gaari weynay hadii caaw mid ay dhacdo haalan ciyaartii Real Madrid ninkan waa nin jiifa waa inuu soo kaca saacadu maxta waxaan arkay ciyaartooyga Manchester City sida Bernardo Silva oo dhaaya waxaan u baahanahay kulankan haalan وحولي هالان وعيران آميسانا هدو جاني سهلو إنو دالين دونو مركا هالان بانو باهن إنو ساقعو كولي رونتي وهالان أو لوكتي كواد ريال مدريد حتى هال شود آن اسكو دين وانا مركي سلال جامليو ميدان يكو خبسان ايسو سانو كل حكو خبسان بيشي اسو دورو متكترسان لابو كولاتنكي ومركي وو رسدوني سيد عيار كدب جامليو مان سيتو عياريو وكولان او جامليو عياري وغول وايو شود وايو مركا مالو دعايب تسباكو دعدينك كايو تاسو واتا كولي وحويان باب مركو عيارتو بسحوليه آمنة ميدا كالو حوليه قود حتى كبو وليه رنتي عاو يانو صابعين حتى وينو ويران حتى عيارتين وبدنا ميدا كالي فالفردي او كلن كور عيارتان سوق آمي سعود توبرها برازيل بعمد دكتور حوليه الله يوفعنا له إذا كان الباسبور برازيل وهايستو وولكاب كاي عياري حوليه هاي وحان كو إري وعيب فالفرديو إن هذا هايستان برازيليان باسبور هذا يوفعنا له بكل جدا يعني نيكا ونين وين كأهوا يا وحكله شيء نيكا كان بريجي أن أنيجا لجولة مدريد هذا كور واحد جبت مرة كلها شرط مولي 8 جول نص سنة عليه وتنكسو هاللي جرني يا ونسمي هذيك لا وحاري 8 جول لا سيسا كان أمي شقدي دم كوينيا وانو يسمي ولا معنا مركا العموم عوا كماش عيار وين باك جرتا لنا عقل عويان ليفركوسن ياسم وصل عياري المها وحي ربان أرسنال إيجول كفت ما يلين ربان الربان كل كور عيار مسك هذا العيارين أرسنال شيار يقول حل دمشي مويانه ولا جب بدير كل كور الله ما تقنا وريا نو كورنا عوض يا كورنا ما جرت FC كورنا لي عوض نلقى إنك دمينينا يا إذا الله يلي براجع دي لك إيجا بحصده بقى عوض محلوه ما تقنا عيار تكور عيار مسك هذا الله وحن بنرجع على المعسين أنا أصلا كورنوين كذي المعسين أبيك هالكور حتى وويسي يعني مرة بيه لك وحقوق كيني واين مركا ليفركوسن أرسنال كورنا ذي حمينو سمعنا سعد قدام يور كان يكينين بقى كورنا ذي معناها مقرانكم ماشي حقوق هذا ماشي كورنا ذا كبلا بد جيسك وبلا قصور بد كورنا ذي قدال إسكمري علنك قدال إسكمريا
meesha la dhigay baa garoonka halkaas laga xariiqay maxay kala jeedaan mataqaana waxay kala jeedaan Arsenal kaliya koorna bay halis ku tahay haddii koornadaas laga saara meesha oo kulan koorna aan laga dhigo Arsenal daciif way ku leeyihiin xabad kama jirta Arsenal ku leeyihiin haddii kulanku bila koorna uu noqday ka wada micnaa kooxdan dhan waxay ku socdaan waa koorna way kala jeedaan waana sax oo Arsenal season markaad fiiriso statisticskeeda koornooyin iyo set space-ku Arsenal season waxay ka heshay 21 gool goolasha koornada iyo free-kiga marka waxay leeyihiin haddii ciyaarta caawa koorna laga reebo Arsenal ku deysii ku leeyihiin wax kale ay sameyn karaan ma jirto ay qabaan wana Arsenal oo runtii saacadii ugu dambeeyay Thierry Henry uu ku amaanayay in sanadkan ay tahay kaliya xataa dawriyal ku guuleystaan warkabwa afle koob iga daawurcna cimaamad waa 22 sano kadib daan dawriyalkan ku guuleysan inuu ku leeyahay wana sax Arsenal waa waxay hadda season aad ugu dhowdahay taasu ma arkayo inay shak ku jirto anigu waxaan isleeyahay Arsenal in April 12keeda kulamada horyaalka ay soo laabanayaan baa dib kaga dhacay mooyaane Arsenal dhawaa madheera horyaalkan wax weyn waa la siinaya aniga markaan arkay dabeecada City aan ku arkay niman la tartami kar nimankan ma nimankan hasirta lagu guuleystay yaqaan nimankaasna Bruno oo malaayacnay yaqaan Bruno wax taray City ku guuleystay wakaas oo maantana jag la siinayo maaha marka wuxuu ku leeyahay ninkan muhiimaddu waa inaan sanadka kan ku guuleysanaa ku leeyahay horyaalka afar iyo waxaas kana iga badan uu taagay macna mid kale wuxuu leeyahay waa inaan ixtiraamo uu leeyahay Arteta ya waa inaan ixtiraamo Arteta wuxuu sameeyay uu leeyahay sababta dad badan waxay ku caynayaan kooxdiisa inay mataqaana koorna ku tirsan tahay iyo Blusion ku tirsan tahay iyo City Space ku tirsan tahay hatta midas Jimmy Carragher wuu cambaariyay wuxuu leeyahay kubadda cagtu malahan buu leeyahay runtii hab saxan iyo hab khaldan oo loo ciyaaro ninkan wuxuu leeyahay xal uu ku badiyo ciyaartu helay uu ku guuleysanayaa macnaha Arteta uu taageerayaa fiiri Arsenal markaad fiiri seasonada marka loo barigo seasonkan ayuu yahay seasonka ay ku tirsan yihiin kubadda hadda ay xataa ka cabaadayso kooxda kubadda cagta Liverpool caawa Champions League 34% Arsenal goolasheedu waxay seasonkan ku yimaadaan City Space marka loo barigo seasonka si koor 24 ahaa kii koor 24 uu ahaa 15 ka soo bilaabay 2020 marka taas waa taa dhinaca kale Henry wuxuu leeyahay ninkan Arteta anigu waxaan ku maaga malaha uu leeyahay Arteta maamulku waxay ku yiraahdeen waa inaad xal heshaa oo horyaalka ku qaadi karto Arteta xalkii uu helay uu leeyahay City Space ayuu helay isteelka marka ma ahan wax ugu muhiimsan waxa weeyaan inaad guuleysan karto marka Arteta xal baa la weydiiyay oo koob ku qaado marka Arteta koob baa la weydiisay ku leeyahay runtii 22 sano kadib hadda waa xal buu helay waana City Space kan mid kale wax weeyaan kooxdiisu xitaa waxay ku xariisan tahay nasiib ku leedahay in ma taqaana season-kan aanu xitaa laga dhalin penalty laga ma dhalin waa kooxda kaliya Premier League aan season penalty laga dhalin fiiri dhamaan kooxaha kala dhan fiiri mid kasta waxba laga helay City low penalty laga dhaliyay laga dhigay nimankan Arsenal waa nimanka kaliya ee aan season xataa wax penalty laga dhigin weeyaan runtii marka waa Henry oo aniga taariikhda ugu gool badan Champions League Arsenal 35 gool weeyaan marka xalay barnaamijka Monday night-ka ayaa lagu amaanay aan u soo laabano marka Arsenal iyo caawa Liverpool markay ciyaarayaan taariikhda labadan kooxood markay habeenku ciyaarayaan nimanka la yiraahdo Arsenal waa lagu yaqaan inay soo baxaan walow mar ay dhacday waqti Arteta yaran markay lugta sano kale ay guuldaro ka soo badbaadeen taariikhda Arsenal marka lugta koowaad ay guuldaro ka soo badbaadaan lugta labaad ay soo baxayeen 20 jeer oo ay dhacday in Arsenal lugta koowaad ay guuldaro ka soo badbaadaan 17 jeer kamid ah way soo baxeen tartanka Yurub walow mar ay dhacday Mikel Arteta waqtigiisa in Sporting ay reebeen tartanka Yurub League markii laba ay galeen kadibna home kooda wan lagu galay Real looga badiyay marka Arsenal sida caadiga ah 29 jeer weeyaan lugta wan baraje ay soo galeen lugta ay soo baxayeen 17 jeer kamid ah Liverpool soo dhawdo 8 jeer ayaa laga badiyay 12 jeer ugu dambeeyay Ingiriiska ay ku soo ciyaareen Champions League laakiin ayaantan ku fiican 3 jeer ay ku soo badiyeen 3 jeer ugu dambeeyay Ingiriiska booqdeen laba kamid ay ku soo badiyeen hatta waxay ku soo garaaceen Man City season-kan 2-0 marka iska jira City la tartamaysa la soo garaacay season-kan taas waa taa mid kale Arsenal waxay badiyeen 16 kamid 16 jeer home-kooda Arteta intuu tababar u yahay ku ciyaareen Champions League hal jeer u baa laga badiyay taasna waxay ahayd tii semi-finalka PSG bay ahayd marka nimankan way adag tahay Arteta waqtigiisa taa gurigooda in looga badi karo Liverpool waxay eegaysaa inay wareegga nimadka Champions League gaaraan markii saddexaad taariikhdooda tan iyo 2022 markoodii ugu horeysay way rabaan caawa markaasna ka labaad bay Champions League galeen Madrid baa ka qaaday sidoo kale saashadoodeena mar bay tageen mid kale goolkii furitaanka maalin weyd ay dhalinayeen kooxda Liverpool wuxuu ahaa kii 23 koorna Arsenal ay kala kulmeen Champions League waa kii ugu horeeyay laga dhaliyay 23 koorna Arsenal Champions League kula kulmeen waa kii ugu horeeyay laga dhaliyay buu ahaa
ونمن أي أذكت إن لا ما يحتاج كورنو نمن كاسا سيكورنو عينين قاضي أرسنال لاعب كده تيمبر وهو هنيك وجود جلافة بدن سيسن كان marna aan la marin Champions League buu ahaa laakiin habeenku waa ka maqnaanaya baa leeyahay runtii taasu wata dhinaca kale waxweeyaan Chelsea iyo PSG ciyaar kale oo weyn caawa la ishaywayaan oo tartanka kan Europe waxweeyaan Chelsea waxaan arkay Stavia u soo laabtay Usman Dembele wuxuu yiri ma cabsanin iyaga basi weerarayna macnaha ma aha ma ciyaar doonul kubad aan iska taagnaan goolkeena waan weeraraynaa oo aan hataa rabnaa inaan ka soo guuleysano Chelsea maxay iyagu soo laabtaan uu tagay xil aan rigo beeni warka sheegay inuu Premier League aaday wuxuu leeyahay anigu tababaraha PSG baan ahay halkan baan ku faraxsanahay wari waayahay markay caawa isla ciyaarayaan qoliyaha kan Chelsea manu badin shantii ciyaar soo dhaaf Champions League PSG la ciyaareen Chelsea 3 jeer laga badiyay 2 bareejo la galay marka Chelsea sida Mujin ay ugu dhibanaan jirtay 2005 ilaa 2025 iyo koon ugu dhiban yihiin oo ay ka badin Champions League kulamo badan mid kale PSG shantii ciyaar soo dhaaf kooxaha Ingiriiska ila ciyaareen Champions League waa unbeaten afarna way ka badin hal bareejo la galeen marna ma dhicin PSG taariikhda 6 jeer inay guul daro ka soo gaarin kooxaha Ingiriiska mid kale PSG waxay eegayaan inay sanadkii afaraad yani inay markii afaraad ay ka soo baxaan kooxo Ingiriis ah feri sanadii ugu dambeeyay Liverpool ay soo reebeen Aston Villa reebeen Arsenal bay reebeen iminkuna kuwan bay caaw ku daraan bay rabaan taas waa taa taariikhda ma dhacday in laga soo laaban karo Chelsea natiijada looga soo badiyay Chelsea 5 gool baa la geeyay Chelsea marka waxa weeyaan 3 gool ay u baahan tahay kooxda kaliya marka taariikhda sidaan sameysay waxay ahayd Deportivo La Coruña 2003 iyo 4 waa kulan runtii hadiiba uu jiro yani kulan yani madax xanuunkiisa uu macna madaxa ka galay kan baa iga galay aniga 2003 iyo 4 kulan aad u baahan tahay hal gool bis ayay AC Milan weysay kadib markii kulanku aad AC Milan garoonkeeda ku dhamaade 4 gool iyo gool dad waxay tiraadeen way soo baxday an laakiin cabsida iyo fulinimada halkaas ka soo bilaabay habeenkaas roob badan da'ay shinamada la aadayay habeenka cabsi way tuuga iyo magaalada jidka ama lagu gala isleedahay waa toosh iska wadataa 7 saac laga imaanay Champions League habeenkaas iyadoo Milan lugta kood 4 gool iyo gool ay ku badisay man aamin Bruno على ابو ويسر محمد وابحي له وسو فيرسله habeenkaas 4 ibra Milan looga badi kaliya Deportivo La Coruña ayaa sameysay in natiijada noocan laga soo laabto oo la badiyaa marka Chelsea in La Coruña ku daydataa habeenkaas marka Milan inuu dheer war hal gool marka qaar Bruno saas waxa weeyaan laacib kasta ku ciyaaraya xataa habeenkii lagu soo maago oo nahareysaayo taas waa taa marka dadka qaar hal gool dhahayo hal gool noo dhalisino hortiina u soo ooyin hal gool taas waa taa Rafinha wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay Barcelona 7 sano kadib haday ka dhaliyay kooxda Sevilla toddobaadka kan kab weyn ayuu ninkaas u gashtay oo taasna waa taa dhinaca kale waxweeyaan Neymar wuxuu yiri aad baan u jabsanahay inaan Brazil lagaga wicin balse wali waan si tababarnaya game ku xigaba waan si dagaalamaya waxaan rajaynayaa inaan goolkii ku guuleysto macnaha World Cup kan aado still hal wicitaan kala dhiman buu leeyahay World Cup oo ciyaartooy la wici doono riidada wali World Cup ka way noo shahay buu leeyahay Ancelotti uu ka hadlay ninkan sababtu kaga tagay يعني ciyaartooyga Mars ciyaari doon ayaa loo wacay xulka marka hadii ma Neymar uu ku jirin ciyaartooygan oo ziyaarinta ugu dambeeyay ku jira waxa weeyaan halis buu ku jira inuu World Cup loo wicin marka Neymar waxa tababar wuxuu yiri Neymar wali still uu aadi karaa uu leeyahay World Cup haduu 100% fid yahay nin caafimaad qaban wada uu leeyahay hadda saas uu yiri saddex afar bilgood wuxuu asal caafimaad noqdo nin caafimaad qaba leh noqdo marka wuxuu yiri Neymar ma wicin maxay 100% fid ma aha waxaan u baahanahay ciyaartooy 100% fid ah Neymar hasi shaqo u leeyahay runtii ha ciyaaro ha muujiyadiisa iyo tam ahanshiisa marka waka Manchester waa kan kaarig markuu yimaado waa bedelay kooxda markuu iimaanay toddobaad ay joogeen iminkuna saddexaad ay joogeen wareenu kan kooxda waa shiday xilli Man United la sheegay Bruno Fernandes inuu kooxda joogi doono xaga dam uu ka bixin hadii kaliya koox u soo baxan bay ku xiran tahay Champions League Maino tababar uu la dagaalsanaa hore kan laakiin fiiri waxa uu aad u safaya hada Maino laatiko sana jir intaan la noqon kaliya Rooney u baa ka badan taariikhda Maino ciyaaryahan Premier League safkood kulamo ka badan